السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسر دواد عاوية جنال برنامج كيني أقون مال ما أنت نوحيدين سو قد بدونا هدو على رالي كنقضة 10 كيسة دحادي عتب كيكواد مادة فيسكسكا جارهان فصل كأفراد دوكسي سري عوان كما أنت أنقانا دون وحو نقضونا هو كسلو حيركي هوك أيو نقضونا وحانا كوسو جيد دونا منوسو جيد دونا عبد القادر عثمان عبد الله عاوية هرداع عوانك وحو نقضونا معشرك ونقضونا markii la joogay 1600 saynisyahanka lagu magacaabo Robert Hooke wuxuu soo saaray waxa loo yaqaan elastic material oo walxaha loo sameeyo elastic material waxa loo yaqaanaa hadii walax la jiido kadib la daayo hadii nashqadii hore ee qadam qaabka hore ku noqotay waxa loo yaqaanaa elastic materials Hooke slow adjustments ama si kala guulihii uu gaar waxa kamid ahay waa ninkii uu soo saaray microscope-ka wuxuu kala soo ixtiraaqay ereyga loo yaqaano cell ayuu soo ixtiraaqay aku maqashay biology Robert Hooke wuxuu ahaa nin u dhashay Ingiriiska oo ah natural philosopher iyo architect and polymath si aan u ogaano marka Robert Hooke waxa uu qabtay markood waxaan soo qaadan doonaa mass attached to spring cufkaas oo lagu soo xiray dhamaadka moolo as model for simple harmonic motion anagoo isticmaalayna qaab ah socod isku dib dhac fudud consider waxa tixgelisaa a block of mass m walax cufkeedu yahay m attached to end of spring taas oo lagu xiray dhamaadka moolo with the block free to move kaasoo walaxdu ay awood u leedahay inay dhaqaaqdo on horizontal surface ayay ku dhaqaaqayso dul jiifta ayay ku dhaqaaqayso as shown below figure sida kaaga muuqato sawirkan hoos sawirkan waxa haysanaa walax cufkeedu yahay m markood way taagan tahay markood waxa la sameeyay stretch waa la kala jiiday marka laad waxa la isku sameeyay compressed anagoo nashqadan isticmaaleen waxa noo soo bixi doon waxa uu yahay Robert Hooke xeerkiisa oo hadii aan soo qaadano walaxda culeyskeedu yahay m hadii aan jiidno aan u baxno right force ama si kala awood muxuu noqon doontaa walaxda lefty hadii aan isku riixno dhanka left dan isku riixno wuxuu noqon doontaa dhankaasi ah right waxaan ogaanaynaa marka hadii inta qof yar uu jiido meel dhow ayuu gaarsiin doonaa hadii qof weyn uu jiido meel dheer ayuu gaarsiin doonaa aniga intaas ayaan isticmaal doonaa Robert Hooke xeerkiisa waa kana markood walax waxay tahay inta m wax ma dhaqaaqsano markan waa la kala jiiday markan waa la isku keenay the simplest form of periodic motion qaabka uu fudud uu leeyahay socodkaleedka can be represented waxa lagu muujin karaa by mass oscillating on the end of a spring cufkaas oo ku xiran dhamaadka moolo ayaa lagu muujin doonaa mounted horizontally taas oo loo dhigay si jiif ah ignore mass of the spring waxa iska indhitirtaa culeyska uu leeyahay cufkaas uu leeyahay habadna ama hayraado ogow no friction simple harmonic motion shuruudiisa waxa kamid ah without friction meeshan waa inay isla lahayn oo ay tahay smooth waa inay tahay anis brain has natural length moolo walba waxay leedahay marka dhirar ama si kale waxay leedahay length ah mid dabiici ah aan isbedelayna at which it exert no force on the mass inta la saaran xoog kor this is the equilibrium position inta la jiido ama culeys loo isticmaalo walaxdu waxay tahay barta nagaashaha waa m there is no displacement moving the mass compressed or stretch hadii walax la kala jiido ama la isku keeno compress hadii la isku keeno or stretch ama la kala jiido the spring moolada the spring then exert on force waxay yeelan doontaa xoog on the mass in the direction of equilibrium position xoogaasna wuxuu u celi doonaa barta nagaasha ayuu u celi doonaa oo maxaa ka wadnaa marka walaxdan ay taagan tahay hadii aan kala bixin aan jiidno right wuxuu noqon doontaa left haddaan u celino left wuxuu noqon doontaa right xoogaas soo celinaya ayaa waxaa loo yaqaanaa marka xooga mooladu ay leedahay waxaan dhihi doonaa this is the restoring force waa xoog kaydka ama waxa kale ku tilmaami doonaa returning force oo haddaan u jiidno right muxuu noqonaa waxa meesha laga keeno ah left haddaan u celino left muxuu noqon doontaa right mar walba maxay isku yihiin marka opposite in direction jiha ahaan oo iska soo horjeedaan meeshan waxa ka dhalan doona marka xeerka Hooke uu sheeg oo haddaan u jiidno left muxuu noqonaysaa right haddaan u jiidno right u celino right muxuu noqon doontaa left meesha waxa ka ogaanaynaa force displacement waxay isku yihiin opposite waa koow laba waxaan dhihi doonaa hadii walaxdan force-ga saaran uu bato displacement waa u badan doonaa hadii uu yiraahdo waa u yiraahdo doonaa oo direct proportional ay isku yihiin at equilibrium position x waxay tahay waa 0 force muxuu yahay 0 wax dhaqaaq ma laha the further the mass moving in the either direction from equilibrium position the greater the restoring force hadii labada dhinac right loo jiido ama left loo celiyo mar walba waxa badan doona restoring force asiga wuxuu ku yeelan doonaa saameyn ayuu ku yeelan doonaa
The restoring force is directly proportional wuxuu saami leeyahay to displacement barabaxa from the equilibrium position marka la taagan bartanaasha wuxuu isku yihiin direct proportional oo hadii force-gan uu bato displacement-ga uu bato doona hadii force-gan uu yiraahdo displacement-ga wuu yiraanaya jih ahaanna way iska soo horjeedaan meeshan waxa ka soo baxay marka Hooke's law ayaa ka soo baxay Hooke's law wuxuu yahay force direct proportional to the displacement force or restoring force is directly proportional to the displacement oo hadii xoog uu bato displacement uu bato doona hadii xoog uu yiraahdo barbaxa waa uu yiraahdo doona calaamadan maxay ku sheegay marka opposite direction force marka uu yahay left displacement muxuu yahay right hadii force uu yahay right displacement muxuu yahay left simple labada marka waa inta hore soo aragay meesha waxa imaada k-daas oo ku maatay calaamada proportionality marka la bixinayo waxaan naqaan waa inuu imaado constant-ga sidoo ku imaanaya tusaale fudan soo qaan hadii maanta aan soo qaato moolada qalinka oo isticmaasho qalinka afar nuucla ah oo aan kala bixin moolada maxay sameeyay doontaa way kala bixi doontaa hadii laakiin aan soo qaadno moolada ku jirto lugta baabuurka oo aan kala jiidno kala bixi karno therefore sababta keenaysa maxay tahay labada mool way kala xoog badan yihiin kala xoog badnaanta ay kala xoog badan yihiin waxa loo yaqaanaa K spring constant and force constant ma doorsoomaha moolada ay leedahay oo displacement-ka duubat force waa badan doona displacement haduu right yahay kan wuxuu noqon doonaa left haduu left yahay wuxuu noqon doonaa right moolada K-dan wuxuu u taagan tahay moolada ma doorsoomaha ay leedahay lugta baabuurka mid gooni uu leeyahay qalinka gooni baabuurka tray gooni uu leeyahay waa kala xoog badnaanta ay kala xoog badan yihiin moolooyinka marka therefore waxaan aanay tusaalahan hada soo qaadnay inta waxaan haysnaa vertical axis waxaan haysnaa waa force newton horizontal axis waxaan haysnaa extension or displacement ayaan haysnaa kan wuxuu ku cabirnaa doona newton kan waxaan ku cabirnay centimeter waxaan haysnaa walax xoogeedu uu yahay 1 newton displacement muxuu yahay marka 2 hadii xoog uu bato displacement-ga waa inuu bataa hadii xoog uu yiraahdo displacement-gana waa inuu yiraahdaa waa directly proportional intaan isna force intaan extension isna waxa ka dhalanaya wuxuu noqon doonaa slope ayuu noqon doonaa slope-kaasina wuxuu matali doonaa spring constant doorsoomaha moolada ay leedahay oo kala xoog badnaanta moolada ay leedahay haye inta waxaan isna weight intaan extension hadaan isna 1 newton kan wuxuu noqonayaa 2 hadda inta 2 ka dhigno inta maxay noqon doontaa marka aan fiirino hadii kan uu 2 noqdo kan wuxuu noqon doonaa 4 haye hadii cufka ama cycle xooga aan 3 ka dhigno kan wuxuu noqon doonaa 4 waxa ku darsamaya 2 waxay noqonaysaa 6 waa direct proportional kan haduu bato kan uu bado doonaa kan haduu 4 noqdo kan wuxuu isku bedel doonaa 8 kan haduu bato kan uu sii badan waa direct proportional hal marka joogno waxaan isna 2 marka joogno 4 3 marka joogno 6 4 marka joogno 8 5 marka joogno maxay heli doonaa marka inaan helno 10 hay maxaba ma subax marka 12 maadaama isbedel oo dhac meesha Hooke's law xeerkiis inta ay ku baabacay inta aan haysan straight line Hooke's law uu jira laakiin inta marka la joogo elasticity ayaa baab elasticity muxuu ahay walaxda inay shape-keeda hore ku noqoto oo moolaha hadii la daayo inay qor u noqoto la raba laakiin hadda inta day dhaafto moolada kor mu noqon karto xeerka Hooke's law meesha ayuu ku baabacay oo marka the elastic limit can be seen on the graph meesha limitka xadka uu ku eegay lotsanka waa inta this is where it stops obeying Hooke's law meesha waxa ku istaagsanay marka inuu aan dabaqno xeerka uu lahay hoog meeshan ku dhamaad oo 1 2 2 4 3 6 4 8 5 ilo meeshan maxaa leeyahay marka 10 Hooke's law meesha ay ku baabaa marka waxaan ogaanaynaa hadii uu bato xooga displacement-ga uu bado doona hadii uu yiraadane waa yiraad doona therefore meesha uu ku baabaa intaan aysan straight line waa spring constant marka maxaa weeyna marka waa constant straight line ka dhan wuxuu noqonayaa waa constant inuu toos sii socdo la rabay laakiin inta maadaama qalloocsan uu ku imaaday Hooke's law meeshaasi ayuu ku baabaa meeshan waxa ku ogaanaa marka tiiradana ama slope-kan wuxuu noqon doonaa k waxay kulmid tahay force oo loo qaybiyay x or displacement ay lagu heli doonaa maadaama uu yahay tiirana maxaa lagu helaa marka slope laga hadlayo waa isku qaybsanta vertical axis oo loo qaybiyay horizontal axis hay Hooke's law hadan soo qaadano aan dabaqno wuxuu noqon doonaa Hooke's law states wuxuu sheegayaa that restoring force xoogeedka applied by spring kaas loo isticmaalo moolada is directly proportional wuxuu saami leeyahay to displacement barbaxa of the spring ee moolada an opposite in direction jiha ahaan iska soo horjeedaan hadii force uu bato displacement-gu waa bado doonaa hadii uu yiraadane waa yiraad doonaa oo xooga iyo barbaxa direct proportional isku yihiin opposite in direction ya ku jeeda hadii moolada aan u jeedno left oo aan deyn muxuu noqon doontaa right hadaan isku riixno right aan isku riixno oo aan deyn muxuu soo noqon doontaa left der muxuu noqon doonaa opposite in direction calaamada opposite in direction ya ku sheegay marka qaacida ahaan dhaho minus ayaa ku muujinayo oo force waxay ku limit tahay minus case x hadii force uu bato displacement-gu waa yiraad uu bado doonaa hadii force uu yiraad displacement-gu waa yiraad doonaa therefore k se ku maato waxaan hadaan soo qaadno moolada qalinka waa kala bixi karnaa laakiin moolada baabuur ma kala bixi karnaa
waa maya farqi u dhaxay maxay way kala xoog badan yihiin kala xoog badnaanta ay kala xoog badan yihiin waxa loo yaqaan spring constancy ma doorsoomaha moolada ama force constancy ma doorsoomaha xooga oo leedahay moolada hay kay maxay u tahay inta spring constant waa ma doorsoomaha moolada hal beegeeda muxuu yahay marka waa newton per meter f maxay u tahay inta restoring force waa xoogkeedka hal beegeedu maxaa waa newton restoring force xoogkeedka waxa uu dhan maxay tahay moolada markay tahay inta xoog ma laha hadii la kala jiido aan deyn laakiin xoog ay yeeltay xoogaas waa xoog u keedsanay sometimes waqt qaar waxay ku magacaabaan restoring force returning force xoog noqod oo hadii la jiido muxuu celinayaa booskeeda hore ayuu celi doonaa x maxay tahay inta is the displacement waa barbaxa waxaan lagu calbiraa halbeega ah meter maxaa soo gaabi doonaa marka m the main sign calaamada mainska indicates wuxuu ku cadeynayaa the restoring force is always opposite direction to the displacement xooga iyo barbaxa inay isku yihiin opposite hadii xoog uu yahay up ayadu maxay noqon doontaa down hadii uu yahay down muxuu noqon doonaa up opposite in direction note waxa ogaa the force joins as x joins hadii force uu bato x will the force uu iraado x iraado doonta so acceleration of the mass not constant acceleration meeshaas ayaa ka jiro maaha mid uu isbedela marka hadii force displacement is bedelaan ayagana okay when you need formula linking forces breakers and displacement marka u baahanta ina xiriiriso marka force breaker madoorsoomaha moolada iyo barbaxa waxa isticmaali karnaa marka triangle method oo muxuu yahay marka f k iyo x da force u baahanahay kana iska qabanayna maxay kulmita marka waa k times x hada k u baahanahayna maxay kulmita f loo qeybiyay x hadan x u baahanna maxay kulmita f loo qeybiyay k definition of terms meeshan waxa ku baran doona marka qeexitaanada ay leeyihiin qaar kamid ah termska aan kor ku soo xusnay restoring force marka wad xoogkeed muxuu yahay is the force waa xooga that retains kaasoo ku celinaya walaxda to equilibrium position barta nagaashaha waa xooga walaxda meesha hore u celinaya hadan u jidno right oo aan dhaafin meesha hore ku celinaymo xoogaas waxa loo yaqaan restoring force ama returning force is the force waa xooga that retains kaasoo walaxda ku celinayo to equilibrium position barta nagaashaha equilibrium position inta ku sheegin barta nagaashaha maxaa ka wadnaa is the position waa meesha in which is object is at rest walaxda meesha koowaad ee ka soo dhaqaaq ay taagin maxaa loo yaqaan equilibrium position spring constant madoorsoomaha moolada k is measure waa cabiraada of stiffness of the spring awoodda moolada ay leedahay geegsanaanta moolada ay leedahay is the measure waa cabiraada of stiffness of the spring xooga ay leedahay moolada oo maxaan ka wadnaa xooga ay leedahay moolada haddii aan soo qaadno moolada qalinka waan kala bixi karnaa laakiin moolada dhulka door ma kala bixi karnaa maya maadaama aan kala bixin awooddaas ay leedahay maxaa loo yaqaan marka spring constant or stiffness stiffness kadan ku sii fasir wuxuu noqon doonaa is the force waa xooga required kaasoo loo baahan yahay to stretch in loo kala bixiyo compress the spring moolada sa u kala bixin xooga u baahanna waa stiffness ama moolada xooga u baahan in isku keeno waxa loo yaqaanaa stiffness awood ama sikal geegsanaan waxaan ku jirnaa Hicks law common formulas which are set equal to Hicks law and Newton's second law and weight xajar marka qaacidooyin isku mid laga dhigo Hicks law isku mid ay noqonayaan sabab maxay tahay marka waxa kamid ah Newton's second law iyo weight when a block mass m hadii walax cufkeedu yahay m suspended laga soo daldalo ama lagu soo xiro vertical spring moola kor hadii lagu soo xiro the restoring force is equal to weight of the object restoring force iyo weight waa isku mid noqon oo maxaa meeshan keen marka weightka hore waxa uu naqaan formankan ku soo baranay hadii walax kor loo soo turo waxa waajib ah inuu soo noqoto hoos hay Hicks law maxaa mar hadii moola lagu soo xiro kor oo la jiido inuu noqoto boos kore therefore moolan kor ku soo xirnay xeerku weightka muxuu sheegaa cufkan maaskan waa inuu hoos soo aado Hicks law muxuu sheegaa hadaan u soo jiidno down waa inuu noqotaa up labadaas say isku mid macnaha u wada shaqeeyaan labadaas xeer waa inay isku mid noqdaan oo force restoring force wuxuu kula mid yahay weight restoring force maxaa lagu helaa kx weight maxaa lagu helaa mg therefore kx maxay kula mid tahay m over g waxay u tahay acceleration due to gravity waa constant in the earth marka joogno 10 meter per second square ama 9.8 meter per second square Newton's second law soo gala marka walax markay tahay straight line ee leedahay acceleration waxa imaana Newton's second law kx oo force wuxuu kula mid yahay ma ayuu kula mid noqon doonaa oo mass oo lagu dhuftay acceleration ka ayuu kula mid noqon doonaa hadda marka tagno gravitational ku isbedelayaa aad baad u mahadsantihiin si casharada kale oo la socotiin page-ka like star subscribe saa cashar walba u heshid asxaabtaas u gaarsiisidne share